dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa martigelisay shirka manhajka waxbarashada dowlad goboleedyada dalka ayadoona maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Shirkan waxbarashada maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa ka suganaa wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo Hirshabeelle. Sidoo kale waxa kulankan goobjoog ka ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. kulankan oo saacado qaatay ayaa waxa ajandihii ka soo baxay saxaafadda la wadaagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Abdiraxmaan Maxamed isagoona faahfaahin dheer ka bixiyay waxyaabihii la isku soo afgartay yeesheen wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyadu wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo intii uu dhaxaysay 30 Maarso ilaa 1 Abriil 2019. shirkan waxaa ka soo qayb galay wasiirada agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxeedyada iyo farsamo yaqaanada wasaaradaha. shirku intuu socday waxaa lagu falanqeeyay arrimo badan oo muhiim ah. go'aamadii ay ka soo baxayna waxay ku xusan yihiin sida hoos ku xusan. imtixaanaadka xogta waxbarashada ee gobolada dalka sida imtixaanaadka iyo shahaadooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada. arday kasta oo imtixaanka shahaadiga ah ku galay gobolada kana gudbay waxa uu shahaadada dugsiga sare ka qaadanayaa wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedkiisa. arday kasta oo gala imtixaanka dowladda kana gudba wuxuu xaq u leeyahay helitaanka shahaadadiisa isaga oo aan lagu xirayn shuruudo kale. waxaa la soo dhaweeyay go'aankii wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee la xiriiray in aan jaamacadaha dalka loo ogolayn arday aan wadan shahaadada dowladda. waxaa la go'aamiyey dhismaha iyo howlgelinta guddiga imtixaanaadka qaran ka hor sanadka 2020 laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2019-2020 imtixaanaadka fasalka 8aad iyo 12aad ee shahaadiga ah waxaa qaadi doona shahaadana bixin doona wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha heer dowlad goboleed oo kaliya. sidoo kale wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay isagoona u mahad celiyay dhammaan wasiiradii ka soo qayb galay shirkan oo muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo fursadda weyn galka laga qayb galay gudana diiradii waajibaadkeena gudano madaxweynaha aad uga mahad celinayna. waxaan sidoo kale aan jecelahay inuu mahad celino wasiirka runtii inkastoo uu yahay wasiir cusub oo shaqada ku cusub haddana runtii qof walba ka culays badan dadaalka badan ee 4 maalin oo dadaanta iyo dadaalka badan oo galay malaqa waa uga mahad celinay. wasiir waxaan leenahay waa mahadsantahay muxuu ahaa anankaaga mahadcelinay la'aanta hawsha noo qabsoontay nooma qabsoontay. waxaa intaas dheer mas-uuliyiintii kale muxuu ahaa Baydhabo joogtay runtii siyaabo kala duwan noo taageertay noona soo dhaweysay inaan hawsheena gudano ayagana aadaan uga mahadcelinaa. waxaa mudnaan leh oo aad u muhiim ah inaan u mahad celiyo wasiiradii halkan ka soo qayb galay shirka oo runtii muujiyay wadaninimo iyo howlkarnimo iyo in ay ka go'an tahay dhammaantood in aan horumarino tacliinta aan u haynay mas-uuliyadda u haynay ubadka Soomaaliya. runtii aniga shakhsiyan waxaan aad ugu faraxsanahay nasiibna aan leeyahay guud ahaanba shirkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo mideyn lahaa waxbarashada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kalena waxaa inta badan looga hadlayay sidii kor looga qaadi lahaa waxbarashada dhalinta Soomaaliyeed. Ibraahim Macalimo TV-ga caalamiga RR TV magaalada Baydhabo.